السلام عليكم ومحي قلبي halkee ayuu ku jiraa wadnaha ayaa qalbi ah bise maskaxda ayaa qalbi ah waa mawduuceena maanta daawade ee muuqaalka like saar haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir aan bilowno muuqaalkeena maanta sidaan wada ognahay wax badan ayaa qalbiga quraanka alla weyna ku sheegay isagoo yiri lahum qulubun la yafqahuun markale alla weyna wuxuu quraankiisa ku leeyahay summa qasat qulubuhum min ba'di dalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa sidaan wada ognahay qalbigu waa halka la iska jeclaado ama la iska naco ilaa astaanta jeclaantu waa wadne qalbigu waa qayb yar oo garasho saaxiib ah wadnahana kamid ah wadnuhu waa jiinka koowaad ee jirka ibni aadamka ama noolaha dhammaan qalbigu ma aha maskaxda ama meel kale ee run ahaan waa wadnaha kaas oo lagu yaqaan bamgaraynta dhiigga ee qaybaha jirka oo idil qalbigu waa xubinta kaliya ee haddii ay xumaato gabi ahaan uu jirku la xumaanayo haddii ay hagaagtana gabi ahaan uu jirku la hagaagayo dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in qalbigu yahay shay macnawi ah yacni aan la taaban karin oo la dareemi karo sida nafta oo kale laakiin waxaan leenahay qalbigu waa qayb muhiim ah waana wadnaha dhiigga haga tusaale haddii qalbiga laga saaro adiga oo muslim ah oo loo geliyo qof gaal ah qofkaasi gabi ahaanba waa uu isbedelayaa waxaanu u fakarayaa dhab ahaan sidaad u fakari jirtay waxaanu noqonayaa qof muslima haddii adiga oo muslim ah laga saaro wadnahaaga yacni qalbigaaga oo lagu geliyo wadno qof aanan muslim ahayn gabi ahaanba waad isbedelaysaa sidaasna waa sababta loo leeyahay waa xubin haddii ay fasahaado jirku uu la fasahaado haddii ay fiicnaatana uu la fiicnaado intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeenu maanta daawade waxaan filayaa inaad wax ka faa'iiday ee muuqaalka like saar una sii sheergaree saaxiibadaada kale hana hilmaamin inaad fikirkaaga noogu reebto qaybta hoose ee faalooyinka mahadsanid